dowladda federaalka Soomaaliya oo taageerayaan saddex hay'adood oo kuwa qaramada midoobay iyo waliba urur goboleedka IGAD ayaa maanta daa ka rogay hindisa muhiim ah kaasi oo lagu hubinayo caafimaadka iyo waliba badqabka hooyooyinka iyo dhallaanka Soomaaliyeed. munaasabadan ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed madax ka socotay hay'adaha caalamka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda Soomaaliya ururada haweenka iyo waliba marti sharaf kale oo ajaanib ah. ugu horreyn madashaasi waxaa hadal ka jeediyay wasiirka caafimaadka mudane Cali Maxamed Maxamuud Cali Dheere iyo waliba wasiirada haweenka ee dowladda Soomaaliya Marwa Khadiijo. wasiirada iyo martida ajnabiga ah dhamaantiin waa idin salaamay. سلام كبعدي ما أنت أنا جو واحد دريم يا عن حسوسنا أيوه مركي عن صوماليا لسيني سيدانا نوهين سانا نودي سجرني أنا جو سيدانا نمن جرني وحي أنا ربنا واقبن جرني قولنا وكجار جرني وحانو ما هذا علنا يا أنتي هوسا سوق من قابسة وسارد عافماتك أنا هذا كل عصب حلكة وحافر حدي إن لا شقيه تيم كي قبل قابضان سيدان أروح ذا بدن كسر شقيه أنا هو بلن قاضية إن أنا عرقلين دونين لكن أنا ديارين دونه وقاني وناكسن ما ملك وناكسن وحال يرعدا وحوي وحد قبنا يسوين أو قبضته سفي عن وما للعادوين وهي المهم التهي وعيكل من إيسا دهترك الله لقدر درجلنا يورين تهاليستا لمشهد هوية الصوماليات يقرشها درجلنتا هوية الدلانكا وربطنت حالة الجود ورسولك أدونك لغدقون يعفري طبعا سيدو كوعد بورك هلتين يالا وانا مهم marka loo fiiriyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka iyo dhallaanka Soomaaliya sida hadda daahfurkan loo ku cadeeyay karmalka oo ah aragtidii ama hindisii wadamada Afrika ay soo hindiseen. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in daarugida qorshaha qaran ee dardargelinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay in lagu sii wanaajinayo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. arrintan waa walqal qof ama barnaamij meel kastoo Soomaaliya ka mid ah tagi doona si uu u joojiyo dhimashada haweenka umulaya iyo carruurtooda ama dhallaanka ay dhalayaan. marka waxaan u walqalaynaa daafur iyo walqal iyo waxaan niraahdaa waxaan u walqalaynaa barnaamijkaas qiimaha badan oo muddo dhowr iyo 20 sanadood ah dalkeena ka maqnaana si daro. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka madaxdeeda iyo qolyaha caalamka ee gacanta na siiyey oo iyaga 22 sanadood runtii garab taagnaa oo u soo gurmanayay gabdhaheenna hooyooyinkeen haweenkeenna si ay u badbaadiyaan iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa. iyadoo ay barbar socdaan ololaha dardargelinta yareynta dhimashada hooyooyinka Afrika. Maxamed Ibraahim Gaabo, Royal TV, Muqdisho.